الرحمن الرحيم maanta taariikhdu tahay 17 Juun 2019 xafiiska xeelaalinta wuxuu la wadaagayaa saxaafadda in dadweynaha uu sheego in kiiskii Caaisha ee maxkamadda darajada koowaad gobolka Nugaal ay ku xukuntay dilka saddexda eedeysan oo kala ahaa Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame Cabdishakuur Maxamed Dige Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame dilka ay ku xukuntay xukunkaas oo ay racfaan ka qaateen saddexda xukumane qareenadooda maanta ay taariikhdu tahay 17 bisha 2019 waxaa soo gaaray xafiiska xeelaalinta guud qoraal ah inay mudeysay kiiskii ay racfaansanaha ka ahaayeen saddexda xukumane xafiiska xeelaalinta guudna uu ka yahay racfaansane inay mudeysay maalinta Sabtida ee soo socota taariikhdu tahay 22 bisha 6 2019 sagaalka aroornimo wabillahi tawfiiq wixii su'aalaha diyaar baan xagee lagu qabanaya marka maanta su'aalaas gobolka Nugaal xarunta gobolka Nugaal baan lagu galayaa insha Allah taala maadaama howlkaas uu weyn yahay kiis dadweynaha u furana uu yahay si shacab badan uga soo qayb galaan sida kii hore oo kale u qabanayna insha Allah taala